gaashaanle dhexe Cabduqaadir Daahir Cabdulle ku-xigeenka hoggaanka maaliyadda ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo ay weheliyeen qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka ayaa kormeer shaqo oo la xiriira ka qayb qaadashada sugidda amniga iyo ka wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed khatarta uu leeyahay cudurkan safmareenka ah ee coronavirus waxay ku tageen duleedka magaalada Muqdisho ka oo ay ka fuliyeen degmooyinka Kaxda, Dharkeenley, Wadajir, Sarkuusta, Waabari, Warta Nabadda, Boondheere, Cabdicasiis Shangaan iyo Xamarweyne. ku-xigeenka hoggaanka maaliyadda ciidanka asluubta Soomaaliyeed gaashaanle dhexe Cabduqaadir Daahir Cabdulle oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu tibaaxay in ciidamada ay kala sameeyeen yihiin sugidda amniga. taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed wuxuu soo sameeyay kormeerkaas oo isugu jira mid amni iyo mid wacyigelin maadaama hadda magaaladu ay tahay bandow lagu soo rogay bandowgaas oo lagu soo rogay xanuunkan coronavirus ama COVID-19 oo adduunka macnaha la keeyay xanuunkaas oo yani mataqaanaa hadda waddanka la sheegay in kiisaskiisu ay ku soo badanayaan iyo arrimo amni oo maadaama bishii Ramadaan ee barakaysnayd lagu jiro qolada nabadiidka ahoo yani cadawga ahoo banaystay dhiigga shacabka Soomaaliyeedna ay inta badan iska aaminsan yihiin inay bisha Ramadaan ee barakaysan ee bil cibaado ah ay dhiigga ama shacabka ama muslimiinta waxa weeye ay ku janno tagayaan marka kormeerkan caawaanu soo sameynay oo soo sameeyay taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxa weeye wuxuu isugu jiray labadaas yani qodob ayuu daaranaa waa midda muhiimka waxa weeye hore ayaa dawladdu ama amarkii dawladda federaalka Soomaaliyeed ay soo rogtay kaasoo ahaa yani markii 2 saac habeenimo la gaaro inay magaaladu tahay bandow ayadoo la yaraynayo waxa weeye khataraha iyo dhibaatada uu keeni karo xanuunkan COVID-19 ama coronavirus oo adduunka oo dhan uu ka qayliyay. taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa bisha barakeysan ee Ramadaan waxay degmooyinka ay ka wadaan wacyigelinta bulshada cudurka coronavirus iyo ka qayb qaadashada amniga dalka. Axmed Cumar, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.